dowladda Turkiga ayaa u soo dhaqaaqaysa dhismaha saldhig military oo laga hirgelinayo dhinaca gobolada waqooyi ee Soomaaliya xogo iyo macluumaad ku saabsan safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee degdeg ah ugu ambabaxayo dalka Turkiga oo laba arin lagu soo meelmarin doono xogo iyo macluumaad ku saabsan ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo dhammaantiina soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad igu cusubtiina ku soo biiro page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama comment kaga soo dhiib halkaan ku bilaabo tan iyo wixii ka dambeeyay 26 bishan waxa soo taraya dadaalada diblomaasiyadeed iyo garab istaaga iyo taageerada dhinaca walba leh ee ay Soomaaliya ka helayso dunida dowladda Turkiga oo saaxiib dowla ah dadaal badan oo dhinaca diblomaasiyadda ahna ku bixisay in gabi ahaanba meesha laga saaro waxa loogu yeeray aqoonsiga ee Somaliland ee Yuhuuddu ay ictiraaftay ayaa waxa ay markan u soo dhaqaaqaysaa hirgelinta saldhig military oo istiraatiiji ah oo laga sameeyo dhinaca gobolada waqooyi ee Soomaaliya saldhigan military ayaa la sheegay in si gaar ah looga dhisi doono deegaan xeebeedka Laasqori ee gobolka Sanaag halkaas oo la doonayo in si rasmi ah looga hortago qorshaha guracan ee Yuhuuddu ay ka damacsan tahay dhinaca gobolada waqooyi ee Soomaaliya isla markaana ay doonayso in halkaasi ay dib u dejin ugu sameyso dadka reer Falastiin oo si qasab ah ay doonayso inay kaga soo rarto dhulkooda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka Turkiga safar degdeg ah ugu ambabaxaya dalka Turkiga halkaas oo uu doonayo in uu ku soo saxiixo laba qodob oo ah tan koowaad in la dedejiyo dhismaha saldhigga military ee Laasqori ee gobolka Sanaag ay ka sameysanayso dowladda Turkiga ee lagu difaacayo qarannimada Soomaaliya iyo in uu saxiixo heshiis cusub oo dhinaca iskaashiga ah ee lagu kordhinayo saldhigyada military ee ay dowladda Turkiga ka sameysanayso meel ka baxsan koonfurta Soomaaliya si la mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Turkiga kala soo hadli doona sidii loo diyaarin lahaa istiraatiijiyad difaac ee la xiriira faragelinta qaawan ee Yuhuuddu ay ku soo dhiiratay madax banaanida Soomaaliya Turkiga waxaana kala dhaxeeya heshiis iskaashi oo dhinaca difaaca oo 10 sano ah oo la saxiixay markii ay taagneed xiisadii ka dhalatay heshiis beenaadkii dhinaca badda ah ee Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi kol hore ay wada saxiixdeen dowladda Turkiga waxay si cad u ballan qaaday inay garab istaag iyo taageero dhinac walba leh ay siinayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhismaha saldhigan waxaa la tilmaamay in laga hirgelinayo deegaan xeebeedka Laasqori uu yahay marin istiraatiiji ah oo xiriiriya gacanka cadmeed isla markaana si joogto ah ay dowladda Turkiga halkaas uga sameyn doonto iyadoo oo ka haysata aqbalaad dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya kormeer joogto ah xeebaha Soomaaliya waxaa muddooyinkii ugu dambeysay isdaba joog ah u soo gaarayay maraakiibta dowladda Turkiga oo gaafure ka bilaabay guud ahaan xeebaha dalka si ay uga hortagaan qatar kasta oo dhinaca amniga ah ay keeni karto qoonsi beenaadkii Somaliland ay Yuhuuddu siisay waxaana markan ay u muuqataa in Turkiga mar kale dhexda uu xiranayo dadaaladiisa difaaca Soomaaliya kooxda Xuutiyiinta oo tallaabo military ka qaadaya maamulka Somaliland halkee ayuu yahay bartilmaameedkooda ugu horeeya iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanada Somaliland iyo hadalhaynta adduunka ayaanu soo koobaynaa soo dhawaada saaxiibayaal bahagaag ugu horeyntii haddii aynu ku bilaawno kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa waxa ay soo saareen war rasmi ah iyaga oo ku goodiyay in tallaabo military ay ka qaadi doonaan maamulka Somaliland sarkaalka ugu sareeya kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen ninka lagu magacaabo Cabdimaalig Al-Xuuti ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in Somaliland ay ka fiirsato tallaabada ay u qaadayso dhanka maamulka uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa lagu xasuustaa in dagaalo adag ay la galeen dalal ay ka mid yihiin Sacuudiga Imaaraadka iyadoo markii dambena dagaalkii ugu dambeeyay la galay dalalka Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil Xuutiyiinta ayaa waxa ay beegsadeen maraakiibta ganacsi ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka qaarkood iyaga oo markaasi howlgallo saf balaaran ah ka sameeyay marinka badda cas iyo sidoo kale gacanka Baabul Mandab tallaabada maamulka Israa'iil uu sheegay in uu ku aqoonsaday deegaanada waqooyi ee Soomaaliya ee Somaliland loo yaqaan ayaa waxa ay dhalisay caro xooggan iyadoo arrinkaasi ay ka falceliyeen dalal badan oo caalamka ah kooxda Xuutiyiinta oo xurguf xooggan ay kala dhaxayso
maamulka Israa'iil ayaa waxa ay markan si cad u sheegeen in ay bartilmaameedsan doonaan goob walba oo Israa'iil saldhig ku yeelato sida qorshuhu yahay marka la aqoonsado Somaliland waxaa xigi doona saldhigyo military oo ay markaasi ciidamada badda ee Itoobiya iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa Israa'iil ay ku yeelan doonaan deegaanada xeebaha Somaliland kooxda Xuutiyiintu waxa ay si cad u sheegeen in goob walba oo Israa'iil saldhig ay ku yeelato uu noqon doono bartilmaameedkooda sarkaalkan ugu sareeya kooxda Xuutiyiinta waxa uu sheegay in Israa'iil qalalaasihii ay ka waday gobolka bariga dhexe markan ay doonayso inay u weeciso dhanka iyo geeska Afrika waxa uu sheegay in aqoonsigooda Somaliland uu yahay qorshe ay ku doonayaan in qalalaasihii bariga dhexe ay markan u soo weeciyaan jiha kale waxaana uu ku goodiyay in ay bartilmaameedsan doonaan goob walba oo saldhig ay ku yeeshaan wixii warar ah soo kordha xilli walba halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal